عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحباب في الله دمانتين والسلام مeel kasoo joogtaan waxaad kusoo dhawaataan casharadeenii barashada business managementiga iyo systemkii Viabar oo runtii dhowr cashir aan soo qaadanay casharan dambe ee update-ka aan ka dhignay oo xagga mobilka ku saabsan waxaan cashirkeena maanta aan ku barnaynaa sida loo sameeyo saleska ama how to make sales sida aad u iibinayso ama aad iib u sameynayso alaabta aad hayso marka aad rabto inaad iibiso processkii aad u mareysay ayaan markaasi cashirkeena maanta aan ku barnaynaa saan hore inay usoo sheegay systemku wuxuu leeyahay dhowr qaab buu kugu soo baxaya ama dhowr weji midkan hadda kuu muuqda waa mid ka mid a saddexda weji ee uu kusoo baxo hore cashirkii hore aan kusoo maganaysaa aragnay wejigan oo kale markuu kuu saaran yahay ama qaabkan aad adigu doorbitay ee sidan uu ku yahay dhowr meelood baad ka sameyn kartaa saleska okay ta koowaad halkan waa ta ku taala halkan sales hadaad ku dhufato halka haddaad sales ku dhufato waa tan way kusoo baxaysaa sales partieskii ama customerkii magaciisa waad gelinaysaa itemkiina xaggan aad gelinaysaa okay horta wejiga kale aan aragno okay qaabka kale waa halkan aad ka galaysaa halkan haddaad ku dhufato waa tan add sales aad kusii dhufanaysaa sidaas baad halkii waa isla halkii baa kuu soo baxday okay ka laabo waxaad kaloo ka samayn kartaa halkan calaamadan balastan ee dhexda taala ayaad ku dhufanaysaa saleski waa kan kuu sarreeya halkaasaad ku dhufanaysaa isla meeshii baa kuu soo baxday okay waad ka noqoni kartaa halkan haddaad joogto xitaa laftarkeeda saleska waa kan halkan ku yaala halka haddaad ku dhufato sales invoice-kan sare haddaad kusii dhufato waa kan halkiiba isla halkii baad imanaysaa marka intaasoo meeloodba saleska waad ka samayn kartaa intaasoo meeloodba waad ka samayn kartaa saleska haddii uu ku yahay qaabkan kale tusaale ahaan haddii uu ku yahay waxaan tegaynaa settingdaan tegaynaa waan soo bedelinaa qaabka waxaan tegaynaa markaasi waxaan ka dhigi karnaa modern baad ka dhigaynaa modern markaad ka dhigato tusaale ahaan saleska xaggan uu ku yaala banaanka waa kan ku yaala sidan aad ugu dhufanaysaa waa kan meeshii baad imatay okay waxaad kaloo ka samayn kartaa halkan menugaasaan tegay menu markaad tagto saleska halkan waa ku yaala sales invoice baad ku dhufanaysaa waa kan halkaasna waa caadi iyadana waad ka samayn karaysaa okay qaabka kale ee saddexaad haddii aan tegnay iyadana waa isku wada mid weeyaan laakiin meelaha yaray ku kala yaalaan unbaa kala duwan okay waxaan tegaynaa markaasi general baan joognaa waa kan waa trending anu qaabka aan isticmaalayaan ugu jecelahay waa qaabkan wuxuu ku fiican yahay xagga deymaha ayuu ku fiican yahay marka imika deymihii oo kale waa xaggan ay ku yaalaan halkaasay kaaga soo baxayaan wixii deyn aad ku leedahay ama adigaba kugu leh halkaasay kaaga soo baxayaan marka qaabkan haddaad isticmaalaysana waa tan xaggan ay ku taallaa banaanka waa kan meesha kale aad ka heli kartana waa halkii caadiga ahayd ee kii kaleba uu noogu jiray waa kan xaggan aad kasii gali karaysaa okay intaasoo qaab waad mari karaysaa okay midkaa doontaba haddaba ayaan ku daysanaynaa tusaale ahaan imika kan aan joogno ayaan ku daysanaynaa marka halkan markaad ku dhufato tusaale ahaan halkan markaad ku dhufato isla halkii baa kuu soo baxday halkaa customerka markuu kuu soo baxo customerkii magaciisi baad gelinaysaa halkaasi okay customerka magaciisii cabdi cali oo kale si geli magac waxay maqanaysaa magaciisii qofkii maqanaysaa customerka magaciisii baad halkaa gelinaysaa ama meherad hadday tahay wax ka iibsanaysaa meherada magaceedii baad gashanaysaa haddii aad rabto markaasi inaad macluumaad kale oo dheeriya aad cabdi cali kasii safe garaysato adbart aad ku dhufanaysaa lambarkiisii baad xaggaa gashanaysaa lambarkiisii baad xaggaa gelinaysaa lacag hore iniga aad isku lahaydeen haddii ay jirto ama isagu kuu lahaa ama adigu aad ku lahayd halkaasaad gelinaysaa iyadana tusaale ahaan halkaasaad gelinaysaa hadduu adiga kuu lahaa saasaad ku daynaysaa haddii kalena to receive taas ayaad daaraysaa haddii kalena to pay baad ka dhigaysaa hadduu adiga kuu lahaa tusaale xitaa hadduu adiga kuu dhiibta lacagtan uu ku yiraahdo ii hay waan ku adeeganaya alaabtan sidan oo kale aad u samaynaysaa dukaanadoo kale inta badan waxay sameeyaan lacagaa loo dhiibtaa lacagtaasi halkaasaad uu ku dhiibtay ka dhigantahay markaasi to pay baad ka dhigaysaa haddaadan to pay yiraahdo lacagtaasi casaan bay noqonaysaa aan safe baan dhahaba kan noqo waan kusoo noqonaynaa saleskaasi okay waa kan cabdi cali lacagtii way nagu leeyahay 6800 ayaan ka dhignay marka saas oo kale ayaad maqanaysaa lacagtaasi hadhow toole hadduu wax kaa iibsado way yaraanaysaa hadba intuu wax kaaga iibsado way ka jarmaysaa marka lacagaha lagu dhiibanayo kale ay anfacaysa dadka lacagaha loo dhiibto okay add saleskii baan ku noqday isla cabdi caligii baan soo qabsanaynaa cabdi cali noo soo qabo waa kan lacagtaa wuu noo dhiibtay marka tusaale ahaan hadduu kuu dhiibanna waxba uma baahnid oo waxa weeyaan caadi baad magaciisa qoraysaa wixii aad ka iibinaysa baad ka iibinaysaa markaasi okay waxaan sameynaa markaasi waxbaan ka iibinaynaa itemyadii aan haynay mid kamid a tusaale ahaan haddaad hayna xaggaasaad gashanaysaa itemka waad safe garaysanaysaa sidii itemka loo safe garinayaan horaan usoo aragnay okay kaasoo kale ayaan imika 20 xabaan ka iibinay 6800 waanu haynay okay safe baan odhanaynaa
item kale haddaan ku darana save and new baan dhahaynaa. Okay, item kalean soo qabsanaynaa. Kan kale noo soo qabo. Okay, isagana muxuu ahaayey 10 xabo 50 bay noqonaysaa. Okay, imisa xabo horta noo taalay 100 xabo noo taalay ba kaasi. Okay, marka 50 xabo ayaan ka iibinaynaa oo 5 lagu dhuftay waa 250 bay noqotay. Okay, haddaan item kale haddaan ku darna save and new haddana sii taabanaynaa. haddaadan u baahnayn save taasaa taabanaysaa waa dhammaysay ka dhigan tahay. Marka lacagta hadduu bixiyo lacagtiisii waxba ka jarmi mayso oo lacag dambe oo cusub una siiyey bay noqonaysaa. Laakiin lacagtii uu noo dhiibtay tusaale ahaan haddii aan kaga iibinayno halkaa tigta ma saarina waan ka deynaynaa. Marka isagaa iska jaraya 6,800 buu noo dhiibtay ahayd imikana 1,250. Okay, save baan dhahaynaa waana ka jarantay lacagtii. Okay, oo taas way ka jarantay 6,800 baan haynay 1,250 ayaan wax ku iibinay oo halkaa noo taala oo taas 1,250 halkaas way ku biiraysaa. iib kale haddaan samayno halkaasaa biiraysa. Marka saleska saad u samaynaysa waa sidaasi hadhow toole sida lacagta deynta ee maqan iyo loo soo payment garaynaya iyo waxyaalo fara badan oo kale aan baran doonaa. Qaybta saleska intaas ayaan ku ekanaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.